عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك عليه على نبينا وعلى آله وصحابته الكرام. walaalayaal, allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga dhigo kuwa intay fadhiyaan ictikaaf niyooda neefsashada ka soo baxaysa khayr loo qorayo, camal kastoo dhagaystaan khayr loo qorayo, waxaan aynu isla wadaagaynana waxay wanaagsan qaataan, waxay khalad aan u haysan inay ka fogaado, ilaahayna nagu anfaco. waxaan ogahay waxaan wadiinteeni maanta waa adduun, berrina waa aakharo. qofku intuu nool yahay ayaa camalku samaynhayo oo qiimo leeyahay. marka mawduuca xalay baan kasoo hadalay ixsaan ku laaban mahayo, kelmadda ixsaan iyo hordhaceeda guud xalay baan kasoo hadalay. waxaan ku qornaa oon xalay qayb kasoo hadalay labada shaksi ee nolosha khaaska wadaagaya waa aadan iyo xaawe, waa zawjka iyo xaaskiisa. labadaa qof oo ilaahay isu qoray inay nolol khaasa wadaagaan, xuquuqda iyo waajibaadka ka dhexeeya xalay kasoo hadalay qayb ka mid a. waa laba qof oo isku jannagalaya ama isku cadaamutaysanaya. waxaan soo sheegna caawa ku horreysanayaa waxyar si aan markii xalay aan joogin ugu noqoto naqtiin. zawjka iyo zawjadu markay guri dhistaan oy reer yeeshaan, ilaahay shaqooyinka uu kala qaybiyey. shaqo waxaa jira haweenku baaskada laga rabaa, hadday ka soo baxdana ilaahay janno u ballan qaaday rabbi subxaanahu wa tacaala. shaqana raggaa dusha laga saaray, hadday ka soo baxaana janna loo ballan qaadayaa. waxaa jirta markay reerku guri yeeshaan oo nikaax u dhaco, ka zawja wa ka zawj, nin iyo xaas ahaan shaqooyinka dumarka waa laba nooc. mid ka mida waa shaqo dumarka loo amooray moo qaban karaynayno, waa tii ajir fara badan iyo baahinimada iyo janno ay in fara badan ku helayaan, raggu ma qaban karaan. waxaa weeyaan dumarka iyagaa walaca, iyagaa 9 bilood caloosha maxruuq ku sira. waa shaqo aada u weyn. qof kasta waxaad qiyaastaan bal makhluuq intaasoo balona caloosha ku jira, nool dhaqaaqaya, oo waxay cabtaba kasii cabaya, waxay liqaba kasii liqaya, hoygiisugu halkaa waa caloosheeda. iyaga caloosha 9 bilood ku siday. markii laga reebo aabaheen aadan iyo xaawi, markii laga reebo ma jira makhluuq aan hooyo caloosha soo gelin. iyaga haddana fooshay, foosho waa lagu dhintaa, waa lagu rafaadaa. iyaga haddana naaska nuujiyey. naasku waa shaqo weyn, laakiin naga naaskeena xala isweydiinay, naaskeenu inagu bashar ahaan ilaahay kollay xigmadu u abuuray naasaha lagu yaalo oo dhammaan ku yaala labka basharka iyo makhluuqa kalaba, laakiin wax hadda xigmada ula jeeda naasaha ragga ma jiro, laakiin naaska dumarka waa kaydkeeda laha. shaqadaas Allah u abuuray dumarka, waa tay adduunka baahinimo carruurtooda iyagaa qaatay, ajir fara badanna aakharo waa ka horeeya. waatuu nabigu ilaahi sala allahu calayhi wasalam markii lagu yiri nabi allow, qofan adduunka ixtiraamoon qacizeeyay oo u horeeya hooyada, yaa ku soo xiga isla hooyada, haddana yaa kale hooyada, yaa kale markii afaraad baabaha la geeyey. reerkaasaa la geeya baahinimada. waxay ka dhigan tahay markaynu waalidkeenu nool 4,000 haddaan bixinayno, 4,000 waalidkan caawasin haddaan dhaho 3,000 hooyada iskale waa qaybtee nabiga sala allahu calayhi wasalam. kunna waxaa iskale aabaha iskale. shaqada waa loo abuuray dumarka. waxaan kasoo hadalay xalay shaqo kale oo labaad oy diintu dusha ka saartay inay zawjadu ninkeeda si wanaagsan
أحسان وانا إلى سوى ناس هاوش أو صدع شق وضع حال كسر قروريان صون اختيام أم أنصر قومنا وحاوه الرئيل إلى يمبروا ذلك العادي على إلا يقول الإسلام مسؤول عارفين أن الملاك كرسي وايد هاوس من روح فريستا شعب هكذا فريسي الضغط لكن من حوينها قرية إلهي ما كرسي فريسي الله سبحانه وتعالى أي الزوج أو قرشية أو شاب ذلك يستقبل مسؤولنا هذا الشعب من حوينها وايد هاوس جايين عقله إلهي ما الزوج حلقة وما معاه ويصير مسؤول كقرية قولها مركا مدام مسؤول كقرية وياهي إني أبدأ على نكيل وواجب وهي شريعة وافقنا الوجيلة أما شريعة الحين بالمصر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق لو أبدأ وحخرج الحجاب كطور صلاتها تكلم ركعت عمها كسلام كي يلبسوا بكرة دعاء وحاسوس قليا تصالحا إن حطوا لكو حاسكيس أبها لقوشي إلى يشاك واجه حطين عذر الدرجين حاسكيس أبها العاوة إن رسحه إلى يشاك واجه وهذا على كمثال حطين عذر الدرجين حطين تنروح النصر عذر الدرجين عادي قطع عذر باجلا وإدارتها وعذر دال هذا كما أسقيت أحسن وغفور كالرسالة عذر باجلا لكن هذا عذر باجلا مركي مربوطة منك ووعظ إلى أدي على واجبا كورا هذا الجديد عذر دال أو قاعد دافع بكفص ما الكفص ما هذا حاجة مرجلة خدوا منك حاس كيس يضحى علينا أبوك عن دافع وكرسي قارب عنها ومستحيل واستغنت وحسيت أنا ما والله ترى الوحوها وحكوا كاسوس قليل على الصوص قليل شقاد الأصل كوا قريقا أفر يلا ما تسعتي لو مشارسية هوش هيسو حتى إذا قلبوا القاية هذا لكن بحيث ما هو بحيث وإنك الوشافة مركب إذا قلنا هاي صباح مركب مربوط إلهي طبقا يسا إن كسوك عسمان تياراوي وإن ترى ولا وضحي لها كسان هذه هو